فضل شوف وريفنا على حبة قبضة حبة ما لا بارد بسم الله الرحمن الرحيم maanta waxaan joognaa xarunta malabka Alcaad halkan waa maaragtay khayraadka wadanka ay ka mid tahay maaragtay runtii mudan dadku inay ka faa'iideystaan malabku sida ogtiin ba diinta islaamkana waa lagu sheegay dhaqaatiirtuna way maaragtay runtii way amaaneen waa daawo dhameystiran waxa yeelay daawada waxa laga sameeyaa dhirteena malabkuna shinidu wax ka sameeysaa dhirteena sidaas daraadeed malabku waxa la yiraahdaa waa daawo لكل داء marka waa daawo dhameystiran uma baahna runtii qofkii daa'imta inuu maaragtay daawo cuno waxyaabo badan ayuu faa'iideeyaa waxaana yaqaan dadka maaragtay malableeda ah iyo dadka malabka aad u isticmaala sida ogtiiba malabku hadda uu ka qaalisan yahay subaga waa ka qaalisan yahay saliim casrada waa ka qaalisan yahay daawada laftirkeeda sidaas darteed ayaa maaragtay ku dareemi kartaa malabka qiimihiisa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa shirkadda malabka Alcaad waxay maaragtay idin diyaarisay malab tayo leh malab saafi ah malabkaas oo laga bilaabo shinida ilaa qofka loo geynayo aan wax maaragtay ay sala socon oo problem ah malabkaas oo ah maaragtay geedo kala duwan ay ka sameeyso hadda maanta midka aan la seenahay waa geedka loo yaqaan gagabada waa geed maaragtay aad u daawo badan dadkii horena ay runtii isku daaweey jireen maaragtay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in laga faa'iideysto doono qof kastana meesha uu joogo ayaa lagu keeni doonaa oo dalbada qofkii imaadana sidaas ayaa loo geeyo doonaa waxaan heeynaa malabkaas saafida ah waxaan rajaynaynaa inaad maaragtay daawada dabiiciga ah isku daaweey doontaan dhalinyarada deegaankana waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iideystaan fursadaha sidan oo kale ah ee hal abuurnimada ah waa fursad maaragtay qaali ah waxay mudan tahay runtii dhalinyarada baagamuddada meelaha la fadhisa inay ka faa'iideystaan oo shaqada ay ka xishoonin maaragtay ay yeeshaan hiigsi in ay yeeshaan maaragtay bilow ganacsi iyo hal abuur inay la imaadaan shiniduna waxay ka mid tahay ganacsiga hal abuur kale ee waliba dadku ay ku faa'iideysteen faa'iidana dadka iyo deegaanka u leh maaragtay rag badan oo dhalinyarana hal abuur u noqday dawladda Galmudug iyo dawladda Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha maaragtay xanaanada xoolaha ayakana insha Allah waxaan rajaynaynaa inay dadka noocan ah sidaan hal abuur kale u imaaday inay maaragtay ku caawiyaan qalabkii u baahnaayeen iyo maaragtay in malabkooda ay wax soo saarkooda la meel marsiyo oo maaragtay wadanka dawladdiisa sidii loo gaarsiin lahaa maaragtay in dawladdu ay la imaato fursadaas ayaan ayadana rajaynaynaa wasaaradda ay qosayso insha Allah fariinta ayaa u direynaa in dhalinyarada maaragtay hal abuurkan la imaatay in ay qalabeyso in ay tayeyso in ay farms u sameeyso iyo beero maadaama hadda shinidu aysan beero lahayn sidii xoolihii la raaco waxaan rajaynaynaa insha Allah inay qorshaha ku soo daraan in maaragtay ay beero u sameeyaan in dhalinyaradan qalabka ka dhiman iyo maaragtay agabka u baahan yihiin in ay u keenaan oo soo dhameystiraan halkan waa shirkadda malabka Alcaad wali waxaan ku jirnaa hawshii malab saafi ah natural ah ay yahay halkan waa shirkadda malabka Alcaad wali waxaan ku jirnaa hawshii malab saafi ah natural ah ay yahay
halkan waa shirkadda malabka cadceed weli waxaan ku jirnaa hawshii malab saafi ah natural ah oo yahay halkan waa shirkadda malabka cadceed weli waxaan ku jirnaa hawshii malab saafi ah natural ah oo yahay halkan waa shirkadda malabka cadceed weli waxaan ku jirnaa hawshii malab saafi ah natural ah oo yahay Yaba. halkan waa shirkadda malabka cadceed weli waxaan ku jirnaa hawshii malab saafi ah natural ah oo yahay Yaba. 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 Y
يلا halkan waa shirkadda malabka cadceed weli waxaan ku jirnaa hawshii malab saafi ah natural ah ay yahay